daawada haddii aad tahay markii ugu horreysay aad soo booqato janaalkeena xigmadyahan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe inoo saarto sidoo kalena aad furato gambeelka si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee meel weliba hela muuqaaladeena cusub sidoo kale ha ilmaamin inaad like share iyo comment aad inoo siiso muuqaalkan mahadsanid weligaana guulayso haweeney u dhalatay dalka Faransiiska oo ku noolay Jazaa'ir ama Algeria ayaa qaadatay diinta Islaamka ehelkeeda oo dhanna waxay ahaayeen dad gaalo ah waxayna ku noolaayeen dalka Faransiiska haweeneydii muddo kadib waxaa ku dhacay cudur halis ah waana cudurka loo yaqaan kansarka waxay aaday dhakhtar si uu u daaweeyo iyada balse waxa uu u sheegay in cudurku uu ku faafay jirkeeda oo dhan isla markaana aan rajo laga qabin in ay caafimaado sidoo kale wuxuu u sheegay in ay haysato waqti yar oo ay ku noolaan karto kadibna raajo ayuu saaray xogteediina waxa uu ku qoray gal gaar ah ehelkeedii ayaa ka warhelay xaalka gabadhooda waxayna u sheegeen inay ku dhacday carrada rabbiga ay rumaysan yihiin maadaama ay ka baxday diinteedii hore kadibna ay qaadatay diinta Islaamka waxayna ku dhaheen ku soo laaba diintaadii hore si uu rabbi ku cafiyo balse iyadu dhag jalaq uma aanay siinin hadalkooda waxayna ku adkaysatay diinteeda Islaamka waxayna u soo bandhigeen inay imaado Faransiiska waxayna u sheegay in halkaas ay joogaan dhaqaatiir waaweyn oo cudurkeeda daweyn kara waxayna u safartay Faransiiska ehelkeeduna waa ay ogaayeen in gabadha aan la badbaadin karin balse iyaga ujeedkoodu wuxuu ahaa in ay ku jeesjeesaan iyo in dadka kale ay u noqoto cibro qaadasho markii ay timid ayay wadeen waxayna ku soo wareejiyeen kaniisadaha oo dhan waxayna ku dhahayeen dadka tani waa ciqaabta uu la kulmayo qofka qaata diinta Islaamka naagtii muslimadda ahayd waa ay oysay weliba si daran kadib markay ogaatay ujeedkooda waxay dib ugu soo noqotay Jazaa'ir iyadoo sugaysa geerida isla markaana haysata diinteeda sharafta badan ee Islaamka habeenada ka mid ah waxay ku fikirtay haddii ay dhimato in ay cibro qaadasho ka dhiganayaan ehelkeeda sidoo kalena ay dhahayaan waxay geeriyootay kadib markii ay qaadatay diinta Islaamka waa ay istaagtay kadibna waa ay weyse qaadatay waxay fidsatay salligii salaada waxayna u istaagtay salaatul leyl ilaahay ayayna baryaysay ducadeedina waxaa ka mid ahaa ilaahow aniga kama cabsanayo inaan dhinto oo aan kula kulmo balse waxaan ka baqayaa inaan dhinto dadkuna ay igu caayaan inaan islaamay dadka kalena ay ka cabsadaan inay islaamaan ilaahayow isii caafimaad dhamaystiran si ay dadku u ogaadaan awooddaada iyo naxariistaada sidaasna ay ku soo galaan diintaada Islaamka anigana aanan noqon qof sabab u ah in ay dad badan ka cararaan diinta Islaamka intaa kadibna waa la miyir daboolay waxayna gashay koomo waxayna soo toostay maalintii labaad xilligii casirka waxayna garatay tani inay tahay geerideeda ayna dhiman doonto habeenkii markii la gaaray sidii ay filaysay ma dhicin welina nafta kama bixin sidoo kale subaxii kale ayaa la gaaray welina ma aysan dhiman wax xanuun ahna ma dareemin waxay ku laabatay dhakhtarkii iyada oo la yaaban sida ay wax u socdaan dhakhtarkii ayaa baaritaan guud ku sameeyay iyada kadibna wuxuu ku yiri adiga kuma ayaa tahay waxay tiri waxaan nahay heblaayo faylkaygana xaggaaga ayuu yaalaa waxaan ahay bukaankaaga wuxuu ku yiri maya adiga qof kale ayaa tahay qofka faylka iska lahaa waa qof qaba cudurka kansarka waana qof naftiisa ay halis ku jirto adigana waxaa tahay qof uusan weligii ku dhicin cudurkan ee adiga kuma ayaa tahay markay intaasi maqashay ayay mar qora sujuud la dhacday
iyadoo alle kaga mahadnaqayso caafimaadka uu siiyey iyo ducada uu ka aqbalay. kadib waxay aaday Faransiiska, weliba waxay tagtay kaniisadihii lagu ceebeeyey iyada, isla markaana lagu sheegay in cudurkani uu u keenay diinta islaamka oo ay qaadatay daraaddeed. dadka ayay ugu sheekaysay mucjisadii ay la kulantay iyo sidii ay ku heshay caafimaadkeeda, maadaama ay wax ka qaban waayeen dhaqaatiir badan. ugu dambayna uu alle u bogsiiyey islaamnimadeeda iyo kalsoonida ay ku qabtay Allah. dad badan oo ka mid ah dadkii gaalada ahaa ayaana daraaddeed ku soo islaamay. Allahu akbar. qisadan waxaan ka baranaynaa in qofkii si dhab ah alle u tala saarto uu alle ka kaalmaynayo dhibkiisa, dheefna ugu bedelayo. sidoo kale inuu alle keliya wax kuu qaban karo oo ay dadka kale keliya leeyihiin dadaalka. allow addoommadaada ayaynu nahee naxariistaada na sii. اللهم آمين.